waxaa jira YouTubers waayay channeladoodii marka ay ku dhaceen dambiga copyright-ka. waa maxay copyright? imse ayuu qaybsamaa copyright-ku si iskaga ilaalin lahayd copyright-ka? su'aalahan jawaabahooda waxaad ka heli doontaa muuqaalkan. fadlan dhamayso intaanad hadhow waayin channelkaaga. Okay, bal han bilowno. copyright-ku waa xuquuqda mulkiyadeedu qof iska leeyahay, waxaana uu u qaybsamaa 4 qaybood: copyright claim, copyright strike, community guidelines, fair use policy. weli isweydiisay farqiga u dhaxeeya copyright claim iyo copyright strike iyo saameynta ay ku yeelan karaan channelkaaga? si aad u fahanto farqiga u dhaxeeya, waxaan kaaga sheekayn doonaa sheeko yar oo gaaban. waxaa jiray nin tuug ah iyo nin taajir ah. ninkii tuugii ayaa waxa uu ka soo xaday ninkii taajirkii gaadhigiisii, kadibna waxa uu yidhi aniga ayaa iskale. markaa boolisku waxa uu aqoonsan doonaa copyright strike, waayo waxa uu soo qaatay gaadhi uuna isagu lahayn. haddaan dib u noqonno, ninkii tuugii ayaa ninkii taajirkii ka soo xaday gaadhigiisii, kadibna waxa uu ka bedelay midabkiisii, waxaana uu yidhi gaadhigan anaa leh. markaa boolisku waxa uu aqoonsan doonaa copyright claim, waayo gaadhiga waxbuu ka soo bedelay. ilaa hadda gaadhigu waxa uu leeyahay wax lagu aqoonsan karo mulkiilihii saxda lahaa oo ah numbarka gaadhiga. sidaana waxaa kula mid ah YouTube-ka, oo haddaad soo qaadato muuqaal qof kale leeyahay oo soo gashata channelkaaga, waxaa kugu dhacaya copyright strike. laakiin haddaad ka soo qaadato muuqaal qof kale uu leeyahay 10 minute ood ku dhex darto muuqaalkaaga, waxaa kugu dhacaya copyright claim. YouTube-ku waxa uu leeyahay wax loo yaqaano contact ID. YouTube-ku waxa uu marin doonaa muuqaalkaaga scan. hadduu ogaado inaad isku ID tihiin, waxa uu ku qaban doonaa copyright claim. haddaba saameyn noocee ah ayay ku yeelan karaan channelkaaga? copyright strike hadduu kugu dhaco 3 mar, YouTube-kaaga hawada ayaa laga saari doonaa. laakiin intaan hawada laga saarin, waxa uu kuu soo diri doonaa digniin si aad u baraarugto. hadduu kugu dhaco strike koobaad, waxa laga xiri doonaa inaad soo geliso muuqaal, inaad live soo korto, iyo inaad community post soo tiraahdo muddo 7 cisho ah. hadduu kugu dhaco strike labaad, waxa laga xayiri doonaa intaan hore u soo sheegnay muddo 14 cisho ah. laakiin hadduu kugu dhaco strike saddexaad, channelkaaga hawada ayaa laga saari doonaa. dhammaan muuqaalada aad soo gelisay waa la tirtiri doonaa, waxaana laga xiri doonaa inaad samaysato YouTube channel cusub. laakiin copyright claim-ku saama aha. copyright strike channelkaaga ayaa hawada laga saarayay, laakiin copyright claim-ku lagama saarayo channelkaaga hawada. muuqaalada copyright claim-ka haddaad ka samayso lacag, waxa qaadan doonaa qofkii muuqaalka originalka ah lahaa. qofka muuqaalka originalka leh waxa uu awood u leeyahay inuu block saaro contactigaaga, iyo inuu iska kaa dhaafo una waxba kugu qabsan, iyo inaad lacagta ka soo baxda aad kala qaybsataan, yacni inaad la hadasho oo ku tiraahdo 100% imse ayaad ogoshahay. haddaan soo koobo farqiga u dhaxeeya copyright claim iyo copyright strike, copyright strike waxaad ku waayi kartaa channelkaaga, halkaas oo kaa soo gaari karo khasaare aad u fara badan. copyright claim-ku isaga kama waayi kartid channelkaaga, subscribe views-kuna si dabiiciga ayay u socon doontaa. saan hore u soo sheegnay, muuqaalka uu ku dhacay copyright claim-ku lacag waad ka samayn kartaa. laakiin hadduu kugu dhaco 3 copyright claim, kama samayn kartid lacag muuqaalka. waxaa jira channelo badan oo muuqaaladoodu viral noqdeen halkaas oo ku dhaceen copyright claim, sidaa daraaddeed waxa lacag aan laga samayn. Okay, weli adigaagan i daawanaya, waxaad ku fikiraysaa inaad noqoto YouTuber, haddana ma garanaysid meel aad ka bilaabi lahayd. waxaan kuu diyaarinay koorso video editing ah, zero to professional. isdiiwaangelinta dufcadda labaadii way socotaa hadda. fadlan nagala soo xiriir linkiga description-ka saaran. YouTube-ku waa social media platform. waxa uu leeyahay qawaaniin iyo siyaasad u gaar ah oo haddaad jawiso lagu ciqaabayo. waxaana ka mid ah ta koobaad inaad samayso khiyaano, tusaale ahaan fake views, fake subscribe, iyo inaad soo iibsato watch time, iyo inaad dadweynaha ku tiraahdo subscribe saarahan kuu saare, iyo inaad koobiyeyso channel qof kale uu leeyahay, loogadiisana saarato, muuqaaladu soo geliya inaad soo gashato, taana lama ogola. iyo inaad soo dhigto linki ku saabsan virus kaa khalkhalinaya laabtoonkaaga dhinaca description-ka, commentiga iyo title-ka, taana lama ogola. qodobka labaad, inaad soo geliso muuqaalo xasaasi ah, tusaale ahaan muuqaalada afduubka, muuqaalada anshaxumada, iyo muuqaalada dhiigku ka muuqdo, waayo daawadaha waxay ku sababi kartaa inuu galo xaalad xun, kuwaana lama ogola. ta saddexaad, inaad ku dhex iibiso
alaabo halis ah sida hubka iyo dawooyinka. YouTube ma ogola in lagu dhex iibiyo alaabo halis ah sida hubka iyo dawooyinka adigoo adeegsanaya linkiga description-ka aad soo dhigayso. kuwaana lama ogola oo muuqaalka waa laga saaray YouTube-ka. waa maxay ciqaabta aad kala kulmayso community guidelines-ka? marka ugu horeysa waa lagu digayaa, marka labaad strike ayaa lagu qaban doonaa, haddana strike labaad ayaa lagu qaban doonaa, haddana strike saddexaad, kadibna channelkaaga hawada ayaa laga saari doonaa. qodobka afraad EDSA waxa laga soo gaabiyey Education Documentary Scientific Artistic. guideline-kaagu waa inuu ka koobnaado 4 qaybood si aan lagugu qaban strike. saan hore u soo sheegnay, YouTube-ku waxa uu ka mamnuucay in lagu dhex iibiyo alaabaha halista ah sida hubka iyo daawooyinka. laakiin haddaad u soo bandhigaysa qaab aqooneed, taasi waa caadi oo wax lagugu qabsanaya ma jirto. waa xeer ku ogolaanaya inaad isticmaasho muuqaalo copyright leh si fasax la'aan ah, oo haddaad isticmaasho wax copyright ah laguma qabsanayo, channelkaagana wax soo gaaraya ma jirto. waxaana loo ogol yahay xaalado gaar ah sida dhaleecaynta, faallada iyo wararka, baritaanka iyo research-ka. haddaad u isticmaal weydo qaabka saxda ah, waxaa kugu dhacaya copyright. waxaana la ogol yahay inaad ka soo qaadato muuqaalada dadka kale 10 ilaa 8 sekin. hadda ma aha minute ogow. tusaale ahaan, waxaan rabaa inaan soo qaato muuqaal qof kale leeyahay oon ku daro muuqaalkayga. waxaan ka soo qaadanayaa 5 sekin ee ugu horeysa, kadib waxaan soo dhexgelinayaa muuqaal aan anigu leeyahay. haddana waxaan soo qaadanayaa 10 sekin ee ku xiga, waxaana soo dhexgelinayaa muuqaal aan anigu leeyahay. haddana waxaan soo qaadanayaa 5 sekin ee ku xigta, waxaana soo dhexgelinayaa muuqaal aan leeyahay, ilaa aad ka samaynayso muuqaal dheer. kadibna waxaad mari doontaa editing, sidaana waxaad ku haysataa muuqaal bilaa copyright ah oo nadiif ah. waxaana isticmaalaa kuwa sameeya khulaasada filmada iyo wariyeyaasha. waxaan rajaynayaa inaad maanta wax badan faa'iiday. haddaad halkan soo gaadhay, fadlan nagu soo biir saan 5,000 u gaadhno oo subscribe noo taabo. waxaan rajaynayaa inaad subscribe taabatay. saa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.